Soomaali ha guulaysto. سلام كدب mahad ilaahay iskale ilaahan u mahadinaynaa dawladeennii oo dadaalka badan oo wadana aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa waxaan u rajaynaynaa guul runtii hadda nafteeda nabada lagu joogaa nabada nafteeda dadka keenay aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa ciidamada AMISOM iyo military iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo kuwa maamulada oo dadaalka badan wado runtii wixii la dhihi lahaa ra'iisul wasaaraha dhihi doona laakiin Soomaaliya dhibaatada ka dhacday iyo meeshii la soo maray waa la ogyahay maanta alxamdulillah meel fiican aan maraynaa astaanta aad ku taagantihiin iyo labaska idinku jiro waa labaskii sharafta waa labaskii wadankan karaamadiisii waa labaskii ummadan karaamadeeda ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeeda iyo wadajirkeedii wixii naga halaabay in la toosiyo haddii maanta intaas soo raga iyo gabdha oo ciidan military ay meeshan taagan yihiin waxaan rajaynaynaa ummadan dhibaatada lagu rafaadiyay oo habsiga kor ku furan ku jirto oo dhamaanteed habsiga ku jir in habsiga ka furtaan diyaar ma u tihiin ummadiin in habsiga ka furtaan ilaahay idin guuleeyo ilaahay waxa idin kaga baryaynaa waxa idin ka hor yimaado idin dhibaatay in idin tusin حبديننا تيل الردب إنه يقف عدو وكل عضو وحي سوري ذان إلهي بيكدقو هي مدحضة قبل لذا وهل كان نوغو يمد إني ogaadaan xaaladda ciidanka ay ku sugan yihiin taasi waxay nagelinaysaa himad weyn waxaa muuqata ka warqab oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga warqabi doono ciidanka waxaa loo ballan qaaday oo madaxda ay ballan qaadeen wixii xuquuq ah oo uu leeyahay inay diyaar ka tahay annaga waxaan la faray oo nala ka rabaa oo waajib nagu ah wixii waajibaada oo nala ka rabo inaan fulino ballankaas ma geli karnaa ballankaas ma geli karnaa yaanaan waxba haddaba been sheegin haddii aan isbaaro dhigan doono haddii aan ummadda dhibaatayn doono haddaba aan nidhaahno ballankaas ma geli karno ballankaas ma qaadi karnaa dhibaatooyin badan ayaa nala ka sheegtay ummadda waxay sheegteen in tuutahaas lagu dhibaateeyo khaasatan safarrada iyo jidadkan safar alla ayaa jidka loo taagan yahay waxaan rabnaa inaan ballan qaadno maanta dawladdii oo dhan tii dawladdii federaalka ahayd iyo maamulkii gobolka aan joogno hortooda aan ka ballan qaadno inaan la dirirno oo aan la dagaalanno marka hore cadowga oo safarka dhibaataynayo oo jidka u taagan ballankaas ma qaadnay kii lagu qabto annaga ma ahan haddaba ogaada sharciga laga soo saarayaa ninka qori wax ku dhaco waa burcad hubaysan dawladda waxaan ka rabnaa go'aan inay ka soo saarto burcadka hubaysan sharci loo cuskado oo meeshiisa lagu toogto dawladdu waa nala joogaan taliyayaasha ciidamada wasiirada xildhibaanada sanatarada saxaafadda iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee halkan diyaarka ku ah marka hore waan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad waxaan ku bilaabayaa waxaan aad horta ugu faraxsanahay inaan halkan idinku soo booqanno halkan inaan idinku soo booqanno lafteedu waxay u tahay astaan tallaabooyinka uu dalku hore ugu tallaabsaday ugu horreyntii waxaan salaan idinkaga sidaa madaxweynihiina
oo aad raalli uga ah shaqada aad halkan ka haysaan idiinna imaan doona haddii ilaahay yidhaahdo marka labaad waxaan u mahad celinayaa taliyaha iyo abaanduulaha oo waqti kooban igala shaqeeyey aniga iyo madaxweynahaba nagala shaqeeyey inay arrinkanu suurto gasho in ciidan la isku soo abaabulo loo dhammaystiro agabkoodii halkan ay isugu yimaadaan iyagoo diyaar u ah inay dalkooda difaacaan madaxda ciidamada qalabka sida dhammaantooda halkan joogana waan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo maamuladiisa oo iyaguna nagala shaqeeyey inaan kulligeen meel uga soo wada jeesanno cadowga aafeeyey ummadda Soomaaliyeed waxaa kaloon u mahad celinaynaa xildhibaanada iyo senatarada naga soo raacay magaalada Muqdisho iyaguna danaynaya inay fiiriyaan xaaladda aad ku sugan tihiin iyo inay idin tusiyaan inay diyaar u yihiin inay idin garab istaagaan waxayna tusaale ka tahay in xukuumadda iyo baarlamaanka iyo madaxweynuhu kulligeenba aan hal meel uga soo wada jeedno sidii cadowga loogu xoreyn lahaa dhammaan waddankeena intaa kadib waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dalkan sidiisaba waxaa xorriyadiisa keenay dhalinyaro iyo ciidan Soomaaliyeed waxaa u dagaalamay oo keenay astaantiisa ciidan Soomaaliyeed waxaa xoreeyay oo sharaftiisa iyo karaamadiisa sugay dad Soomaaliyeed oo idinka kala ah maantay Soomaaliya waxay haysataa fursad weyn fursaddu ma aha madaxweynaha ma aha ra'iisul wasaaraha ma aha baarlamaanka ma aha dawlad goboleedyada madaxdooda fursadda Soomaaliya ay haysato waa ciidamada Soomaaliyeed sida kaliya oo aan dhibaatada uga bixi karno waxa ay tahay inaan idin wakiilana idinka inaad soo celisaan karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed maadaama aan annagu idinka idin wakiilanay inaad soo celisaan karaamadii iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed waxaad matalaysaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed sida aad ula dagaalantaan cadowga oo aad uga adkaataan sida aad u ixtiraamtaan dadka Soomaaliyeed oo u shaqeynaysaan sida aad u sharaftaan dharka aad gashan tihiin sida aad u ixtiraamtaan calanka Soomaaliyeed oo idinku ka tihiin ilaaliyayaal ayaa waxay noqonaysaa astaanta qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaad ogaataan calankan aad ku wadataan garabkiina bidix waxa uu ka turjumayo waxaad xasuusataan mid ka mid ah halyeeyadii ciidanka Soomaaliyeed Soomaad arkina meeshan weyn oo la yiraahdo Xalane ee ku taala Xamar yaa loogu magac daray waxaa loogu magac daray nin idinkoo kala ahaa askari Soomaaliyeed ahaa Xalane la oran jiray 1964 ayaa ciidan Soomaaliyeed oo jooga tuulo yar oo la yiraahdo Togwajaale waxay la kulmeen dhibaatooyin badan waxaa ka mid ahaa in ciidankaasi laga soo riixday meeshii ay joogeen markii laga soo saarayay meeshii ayuu Xalane Allah u naxariistay wuxuu arkay calankii Soomaaliyeed oo xerada ka babanaya wuxuu ka xishooday oo ay sharaftiisu siin weysay inuu ka soo tago calanka waa calanka hadda idinka garabkiina bidix ku suran wuxuu ku noqday meeshii markaasuu soo dejistay calankii iyadoo daqiiqad walba ay xabadi ku dhacayso inta xabadda ay ku socotay xataa uu dhulka ku dhacayay calankaasi ciidu ma aanay taaban
wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed laakiin wuxuu ka turjumayay Soomaalinimada iyo qarannimada Allahu akbar wuxuu ka turjumayay muhiimadda uu calanku inoo leeyahay idinkuna waxaad tihiin waardiyaashii calanka Soomaaliyeed waxaad tihiin cid ilaalinaysay waxaad tihiin cid soo celinaysay sharafta calanka Soomaaliyeed sidaas daraadeed in gabdhihiina iyo wiilashiina iyo hooyooyinkiina iyo aabayaashiina lagu dilo dariiqyada in jidadkeena la xirxiro in adduunyada aan ka harno in Soomaaliya loo haysto inay tahay dalka dunida ugu liita sida kaliya uga bixi karna waxay tahay idinku inaad matashaan ummadda Soomaaliyeed inaad ogaataan mas'uuliyadda ay leedahay dharka aad gashan tihiin Soomaaliya sida kaliya ay ku horumari karto waxay tahay inaan ka adkaano cadowga annagoo midaysan xukuumaddu waxay idin ballan qaadaysaa in bil walba marka ay dhamaato aad heshaan mushaarkiin xukuumaddu waxay jirtaa 2 bilood waxaan aaminsanahay Janaayo ilaa bisha Abriil in qof walba oo ka mid ah ciidanka la siiyay mushaarkoodii